waxaan rabnaa inaanu waraaqa soo baxday xafiiska waaxda dakhliga agaasimaha dakhliga in oo shalay soo baxday oo sida u qorneed si aan ahayn dadka qaarkood u turjumeen baan rabnaa inaan qeexid yar ku sameeyo shacabka ku nool degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa inaan la socodsiino waraaqdan oo shalay ka soo baxday agaasimaha dakhliga oo ku saabsanay diiwaangelinta gaadiidka degmada Gaalkacyo ayaan waxaan rabnaa inaanu sidii saxda ahayd u soo baxday u sheegno waraaqdan waxay ku salaysan tahay in la diiwaangeliyo gaadiidka ka shaqeeya degmada Gaalkacyo diiwaangelintaas oo ah in database loo sameeyo oo gaariga iyo qofka iskale iyo milkiilaha iyo lambarkiisa in ay degmada Gaalkacyo laga helo si guud baabuurta Puntland ee waa u diiwaan gashay wasaaradda hawlaha guud baa u diiwaan gelisa laakiin wasaaradda hawlaha guud markii diiwaan gelinayso ma u diiwaan geliso degmada Gaalkacyo iyo degmada Boosaaso iyo degmada Qarle uma diiwaan gelisay Puntland baabuurka soo dega baa loo diiwaan geliyaa anaga marka waxaan rabnaa anagu badqabka degmada ka shaqeynayna in baabuurtan degmada Gaalkacyo ka shaqeysa inay noo diiwaan gashan yihiin database ay ku jiraan canshuurta ku waajibtay 3 biloodlaha markii la gaaro gaariga bixiyeen daatada la geliyo oo la yiraahdo gaarigan lambarkaas leh oo hebel leeyahay waa bixiyay canshuurta gaariga aan bixinna la yiraahdo inta la waca lambarkiisa la yiraahdo hebel muwaadin lacagtaas waxa laga rabaa 3 biloodlaha inaad iska bixisid diiwaangelinta horta waa saas waxyaabaha kale inaga caawinaysa waxa kamid ah in tusaale gaariga wuxuu gelinaya faldambiyad geysanaya faldambiyadkaas markuu geysto qofka shacabka ay u dhowaa taargadiisa qoraya taargadiisa hadduu qoro wuxuu la soo xariirayaa degmadu la soo xariiraya degmadu waxay sheegaysaa waxay cadeynaysaa gaarigaas qofkii iska lahaa magaciisa mulkiilihii cid walba oo iska lahayd bay cadeynaysaa annaga dhinaca kale waxa uga faa'iideysanaa ka degmo Gaalkacyo ahaan baabuurta degmada Gaalkacyo oo diiwaan gashan gaari kasta canshuurtiisa iyo xilligiisa iyo soo bixiyay baabuurta canshuurta bixisa oo aan sanad walba ama 6 bilood walba ama 3 bilood walba aan ugu yeelan waa baabuurta dawladda degmada Gaalkacyo u diiwaan gashan oo abaalmarintooda iyo ixtiraamkooda yeelanaya baabuurka dhudhuuntana hadee halkaas aan ka soo qabanayna mulkiilihii baa la garanayaa taleefankiisa baa la garanayaa cid walba la garanayaa waa qodobka koowaad qodobka labaad oo ah waxyaabaha dadku ay ka turjumayaan anaga baabuurta aan diiwaan gelinayno waxay noqonayaan baabuurtii horeyba badankood loo diiwaan geliyay inta dhiman baa la diiwaan gelinayaa taariikhda agaasimuhu soo saaray waa 2 bisha ilaa 3 bisha intaas waxaan rabnaa in anagu waqtiga aan ku bixino dhaqaalaha degmada bixinaysa ciidanka la shaqeynaya waxaasuna anaga bixinayna marka waxa loo baahan yahay qofkan muwaadinka markii loo yeeray inuu yimaado oo warbixinta gaariga uu bixiyo shaqadiisa hore ka wato wax qarasha iyo wax bajada hal dooran Allah ka dhigay oo gaadiidleeda ka rabnaa ma jiro taas intaas aan ugu cadeynay qof muwaadinka waxaan rabnaa dhowrkaas maalmood oo shaqadu socoto in waqtiga uu kaga faa'iideysto xarunta tago kuwiis diiwaan geliyeen waa mahadsan yihiin iyagana waxa leena mahadsantiin taas waxaan uga tagayaa waraaqdii shalay ka soo baxday agaasimaha xafiiska agaasimaha dakhliga waraaqda ka soo baxday waraaq kale oo waxa jira ka soo baxday xafiiska xogayaha oo xafiiska kana ah oo aan rabnay inaanu kaga mamnuucno bajaajta wadada weyn oo halbowlaha waxaan rabnaa waraaqdaas baraha bulshada waa soo galinaynaa cidii khuseysana waa siinay waxaan rabnaa in la dhaqan geliyo bajaajta wadadan halbowlaha wax aan koorsa aan kuma mari karno waxa dhacay shilalkeedii baa batay basaskii oo iska lahaa wadadan suuqii bay ku qabsadeen magaalada bartankeeda wadada weyn lafteeda ka rakaabsanayaan taas heshiis go'aan baan ka soo saarnay go'aankaasna waxaan rabnaa laga bilaabo 31 bisha oo biri inay dhaqan gasho waraaqdaasna 29 bisha soo baxday iyaduna waxaan rabnaa inay dhaqan gasho bajaajleyda wadada weyn ee laamiga halbowlaha inay ka rakaabsadaan waa ka mamnuuc waana ka shifnay ganaaxiyo iyo maxaa la yiraahdaa waxay kala kulmayaan iyo ciqaabay kala kulmayaan wadadaas basaska waaweyn baan u deynay iyaga iskale bajaajta laamiyada kale oo leexsan wadooyinkaas kale leeyihiin tan waxaan ahayn ingeer ahayn kuma mari karaan waana uga mahad celinayaa saxaafadda